hooyadaa waxay ka fikirtaa cunto sidii kugu heli lahayd adna waxaad ka fikirtaa ku shubasho saad u heli lahayd farqiga idiin dhexeeya adiga iyo hooyada haddaad fahmi lahayd waxba kumay dhibeen waxaad shaashada ka arkaysaa qof qurxoon balse markaad caadi u aragto aad sasiisid beenta yaraanteedii soo liqay yaa dadka soo dhalan doona uga diga waxay waaliinta ku dhahayaan kabta rogan shayddaan ayay ku tukanayeen rog yaana ogeyn shayddaanka iyo ilaahay inay beri hore kala go'een si shayddaamin cusub baa soo baxay xidhiidhkan moobilka wada leenahay ilaa heer wuxuu marayaa aan dabka ku dul isticmaalo wakhtigii inuu qaali yahay waxaad dareemi kartaa markaad xurriyaddaadu weydo oohintu waa xaalad kala beddelka murugada iyo farxadda ilaahay wuxuu ku abuuray inaad caabuddo balse kumuu abuuray inaad qof kala mitishid ilmaha yaree 8 jirka amba 7 jirka aamus hus agtiisa waxay ka tahay cabsi balse markuu weynaado qosol hooyo walbo ilma dhashaa waxay ka warwartaa il cawrid waxaad moodaa inay dadku jihaad kugu ahaayeen waqtiyada salaada lagu jiro waxaannu galnaa xisaabta inayna gelin xilliga aanu firiiga nahay jahligu wuu ka dareeyey xabsiga tag oo cagameydho oo seexo waxay ka darnay dilidda amba garaacidda sidaad u murmisid aakhirka hamiir doormin wuxuu mid walba isku tilmaamayaa gaangis isagoo gaajaysan oo wax quraaca aanan haynin hees aanad midhaheeda iyo macnaheeda aanaad aqoonad ku faantaa waa qayb ka mida jaahiltinimada dhalinta dambe waa qosol oo waxaad arkaysaa mid dhuuban balse laydhaah joon geesinimadu ma aha in dhowr sanno xabsiga lagugu xukmo ood soo laacdo waan dhammeeyey iskuulka balse waxba iskamay kay beddelin wiiladiina waxaad kastoo sii baxno waan cabaadi jirno waan qaylin jirnay foofoorkii waan ka sii dallaacnay cabaadka balse jaamacadda ma ogi weligaa hal mid ayaanad ilaawi karintaad nooshahay akoonka xisaabta suuliga jijilaacu waa ka jijabiye ragga ee mar weliba loo doorto tababarka adag nin raggii wuxuu qabtay adoo nina haddaad qama weydo waxaad ku xisaabsan tahay liiska dumarka nimaan qiimin jirin hadduu qaybiye nimaan qadi jirin ayaa qada waxaan ogaaday haddii aad ka soo jeedo qabiil laangdheere ah aysan ku saamayn doonin qabyaaladdu balse haddii aad ka soo jeedo qabiil laangaabo ah ay ku saamayn doonto qabyaaladdu qof rafaad iyo oohin soo dhammaystay waxba caydu dhibi mayso isku dhiibi maayo waayaha samir buu ku dhaqaaqaa dharaar unbuu noqdaa ruux dhammanay dadku raadsadaan dhinacyada ka socdaan ammaan u dhiraandhiraan fadhigagooda kacaan sacabna ku soo dhoweeyaan